riyadaadu waxay tahay xidigta allana wuxuu kula doonayaa dayaxa oo micnaheedu yahay raaligeli allah si uu kuugu rumeeyo wax walba kana raali ahow nafsadaada u yabooh nafsadaada farxad ilaa ay kaaga timaado farxaddaasi dareensii nafsadaada rajo ilaa ay adduunyadu ka timaado labadaada gacmood dhexdooda ku farax waxaad haysato ilaa ay kuu timaado in ka badan intii aad filanaysay samay wixii kuu wanaagsan oo alla raali ka yahay si ay naftaaduna raalli u ahaato mar walbood raaligeliso allah waxaad adiguna ka helaysaa wax uu kugu raaligeliyo allaahu akbar qanacsanaanta iyo dib u heshiisiinta waxay horseedaysaa inuu allah inagu farxo raallina inaga ahaado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu xadiisulqudsi ku yidhi waxbaad doonaysaa addoonkaygiyow aniguna waxbaan doonayaa haddii aad igu raaligeliso waxaan doonayo waxaan ku siinayaa waxaad doonaysid doonista allah waxaa ku jirta xigmad balse dhammaan ma fahmayaan sidaa darteeda isku qabo indhaha kadibna dheh rabbiyow ii door wixii khayr ii ah raallina aad ka tahay naftayduna ay ku xasilayso noloshu wax walbana ma siinayso balse qanaacadda ayaa inaga yeelaysaa kuwa ku raalli ah waxa ay heestaan si aan walwal lahayn ku dheh allah ayaa ku mahadsan wixii la soo dhaafay allah ayaa ku mahadsan waxaan ku suganahay allah ayaa ku mahadsan wixii ii imaan doonaa sidoo kale allah ayaa ku mahadsan wax walba alxamdu lilaah qanacsanaan iyo dhoola caddayn uma baahna noloshaada wax intaasi ka badan haddaba ku raalli ahow nafsadaada xitaa haddii ay ilmadu iiga qubanayso sidii dhibco roob ah oo kale waxaan ku qancayaa aayadda leh walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa wuu ku siin doonaa rabbiga oo waad qanci doontaa